qaar ka mid ah dhalinyarada Somaliland ee ku sugan Muqdisho isla markaasna dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shantii sano ee ugu dambeysay ay ku guuleystay inay ka soo dayso qaar ka mid ah xabsiyada dunida oo ay ku xirnaayeen isla markaasna ay qayb ka yihiin Seychelles, India, Liibiya iyo dalal kale oo Itoobiya ay qayb ka tahay ayaa waxa ay codsadeen isla markaasna baarlamaanka ka dalbadeen in uu ka shaqeeyo sidii mar kale talada dalka ay ugu soo celin lahaayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhalinyaradan ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo shantii sano ee lasoo dhaafay uu ka shaqeeyay isbeddel ay u riyaaqeen dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Somaliland, iyagoona dalbaday in waqti kale la siiyo fursad uu ku hogaamiyo dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. taasoo ah dib u doorasho aan weligeed hore loo arag runtii shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada qayb qaadanayaan. runtii shacabka Soomaaliyeed waxay ka dhursugayaan ama ay u dhagtaagayaan 15 May oo ku astaysan maalinta loo asteeyay doorashada. annagoo ah dhalinyaradii xabsiyada kala wada duwan ee dunida laga soo daayay kuna hadlayna afka dhalinyaradaas kala wada duwan ee laga soo daayay xabsiyada kala wada duwan ee dunida sida Liibiya, India, Seychelles iyo Ethiopia. dhalinyaradayadaas oo iyadoo aanay jirin maalin aan uga baahi badnayn maalintaas inuu qarankayguna barbar joogsado noona muujiyay madaxweynahayagu garab istaag iyo hiil aanu dareennay in qarankayguna barbar joogo si kastoo tamartiisu weli u yar tahayna oo haddana tamar iyo tacab bay isugu geeyey sidii dalkeenna hooyo uu noogu soo celin lahaa. haddaba waxaanu ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh guud ahaan gaar ahaan xildhibaanada gobollada waqooyi oo aanu ka soo jeedo iyo sidoo kale guud ahaan xildhibaanada kala wada duwan ee golaha shacabka oo dhalinyartan iga dambaysa nin walbaaba uu gobol ka soo jeedo waxaan ugu baaqaynaa inay ixtiraamaan tixgeliyaan codsigeenna oo ay u cusboonaysiiyaan madaxweynaha sharciyadda si uu u dhammaystiro howlaha baaxadda leh ee socda. waxaanu mar kale idinka codsanaynaa inay idin codsigeenna tixgelisaan oo idin madaxweynaha qaranka dib noogu doorataan si howlaha baaxadda leh ee socda uu noogu dhammaystiro. mahadsanidin mudanayaal. ugu dambeyn waxaan leenahay dhalintaad ku tacabtay baa aabbo garabkaaga joogta aabbo dib u dhac ma ogelin aabbo noo dhammaystir howlaha dhiman aabbo. mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay sida noo garab taagtay had abaalka noo gashay had xabsiyada nooga soo saartay yaan maantana han ku garab taagina guuliso madaxweyne guul insha Allah guul waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne sida shalay noogu hiilisay ee aad xabsiyada nooga soo deysay ayaanu maanta ku garab taaganay insha Allah waxaan ku rajaynaynaa guul baan insha Allah ku rajaynaa madaxweyne shacabka Soomaaliyeed oo dhan dhamaan way ku garab taagayeen xildhibaanadan waxaan leenahay mar labaad noo soo celiya Farmaajo.